بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha qiimaha leh ku soo dhawaada ardaygeena. Dadka qaar waxay ku tilmaamaan tusaalaha guusha sababtoo ah wuxuu ku guuleystay wax kasta oo uu isku dayay. Wuxuu noqday xiddi ku caan bahay ciyaaraha iyo jimicsiga jiddiska. Heer uu gaadhay in magaciisa loo bixiyo qaar ka mid ah qalabka loo isticmaalo tababarka jimicsiga ama gym-ka. wuxuu noqday jilaa filimada matala oo ku caan baxay magac iyo maamuusna ku helay filimada action-ka. sidoo kale wuxuu noqday siyaasi ka taliya mid ka mid ah ismaamulada dalka Mareykanka. cid kale ma aha ninka aynu ka hadlaynaa ee waa jilaaga reer Hollywood ee Arnold Schwarzenegger oo Soomaalidu u taqaano Commando, kaas oo magaciisu ku faafay caalamka aflaanta iyo dunida qaybaheeda badan. inkastoo uu ka soo jeedo una dhashay asal ahaan dalka Austria, haddana wuxuu magac weyn ku dhex yeeshay dalka Mareykanka. isla markaana bilowgii noloshiisa wuxuu ku soo koray rafaad iyo nolol aad u adag. wuxuu dhashay 30kii July sanadkii 1947 wuxuuna ku dhashay magaalada Tal ee dalka Austria. halkaas ayuu ku barbaaray ilaa 19 jirkiisii. wuxuu ka soo jeedaa qoys ku nool nolol dhexdhexaad ah. marar badan wuxuu ka sheekeeyay dhibaatooyin yaraantiisii qabsaday oo uu ugu wacnaa aabihii oo jirdil u geysan jiray. markasta wuxuu ku biiray dhalinyarnimadiisii gaar ahaan sanadkii 1970kii ciyaarta jiddiska ama bodybuilderka. waqtigaas uu ku jiray ciyaartaasi waxay ahayd mid sumcadeedu aad u hooseyso, mana aanay lahayn taageerayaal badan oo ku xidhan. laakiin taas isagu muu joojin. wuxuu sii waday dadaalkiisii ilaa uu ku guuleystay biladda loo yaqaano Master Universe sanadku markuu ahaa 1967. kadib markuu halkii ugu sareysay ka gaadhay ciyaartaas, wuxuu u soo safray waddanka Mareykanka sanadihii 80meeyadii si uu u noqdo jilaa. caqabado badan kadib waxa uu suurto gashay inuu u soo baxo filimkiisii ugu horeeyay sanadkii 1982. filimkaasi oo magaciisu ahaa Conan the Barbarian, filimkaas oo gaadhay guul weyn. isla markaana wuxuu xoogga saaray uu isagu ku soo caan baxay filimaanta dagaalka iyo ficilada halista ah. waxaana ugu caansan filimaantiisa taxanayaasha ah qaybaha Terminator. wuxuuna jilay filimaan guulo waaweyn gaadhay oo badankoodu yihiin dagaal ama action. isla markaana wuxuu noqday jilayaashii ugu caansanaa uguna dhaqaalaha badnaa waqtigaas. kadib markuu guul weyn ka gaadhay dhinaca Hollywoodka, wuxuu u digarogtay dhinaca siyaasadda. waxaana loo doortay gudoomiyaha ama duqa ismaamulka California. waxaana xilkaas loo doortay 7 Oktoobar 2003. wuxuuna ku dhamaystay xilligaas ama muddadaas uu xilka hayay waxqabadyo la taaban karo. kadib waxaa dib loo doortay sanadkii 2006, wuxuuna xilka hayay ilaa 2011. kadib wuxuu dhamaystay xilligiisii siyaasadda, wuxuuna dib ugu laabtay jilista aflaanta. dhanka noloshiisa gaarka ah haddii aynu eegno, Arnold wuxuu guursaday gabadh wariye ahayd oo la dhaho Maria Shriver sanadkii 1986, waxayna u dhashay 4 carruur ah. ugu dambeynna waxay si rasmi ah u kala tageen sanadkii 2017. Arnold Schwarzenegger saaxiibadiisii yaraantiisii waxay sheegaan inuu markasta odhan jiray, markii uu yaraa, riyooyinkayga oo dhami way rumoobayaan markaan tago Mareykanka ee aan noqdo jilaa Hollywood. kadibna aan guursado mid ka mid ah dumarka qoyska madaxweyne John F. Kennedy. waxaase cajiiba inuu kaga dhaweeyay riyooyinkaas oo dhan, waayo xaaska uu guursaday waxa abti u ahaa madaxweynaha Mareykanka ee geeriyooday John F. Kennedy. sidoo kale majalada ama wargeyska Empire ee Ingiriiska
laga leeyahay waxay u dooratay kaalinta 20aad ee liiska 100 jilaa ee ugu fiican taariikhda fanka Hollywood. Arnold waxa uu ka dhisay magaaladii Seattle ee dalka Austria madxaf ama museum uu magaciisa u bixiyay, halkaas oo lagu kaydiyo xasuusaha gaarka ah iyo guulaha taariikhiga ah ee uu gaadhay. Haddaba qisada ninkan waxaynu ka baran karnaa dadaalka iyo inaan qofku marnaba isdhiibin. Si kastoo xaaladdu ay kuugu adkaato, waana qiso dhiirigelin ah oo uu ka shidaal qaadan karo qof kasta oo ku guda jira ka dhabaynta hadafyada iyo himilooyinka noloshiisa. Sheekadeennii ku saabsanayd Arnold Schwarzenegger halkaas ay ku soo gabagabowday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.